bisada iyo jiirka maxaa ka dhaxeeya is-aragu ma ka dhaxeeya soo ma jiirkii baa isku yimiday way tashadeen waxay yidhahdeen habeen walba bisadii 10 20 waa la na dhameeyey seen u badbaadnaa ka tala bixiya jiir baa yidhi markaa ra'yi fiican buu soo jeediyo wuxuu yidhi waa mithaal yani koortan awrta la sulo soo ma taqaanaan jaras geela la sulo hal la qaado oo bisada qoorteeda la soo sulo buu yidhi si markay soo socoto shanqadha loo maqlo dadna looga dhuunto markaas jiirkii oo dhan baa yidhi wallahi fikraddaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyey waan isku raacnay marka jiirka sheekhoogii ugu weynaa baa yidhi waa hagaaga ayaa soo suraya buu yidhi soo saamaynta nabiga ku salliya dad muslimiintoo dhan maanta inay diinta dhegaystaan inay diintu nolosheenna ka muuqato inay muslimiintu acaza annaas inay noqdaan waan jecel lahay laakiin marka la gaaro diinta dadaalkeegii nin walba geerka dambe u gashanaya markiiba war waxba geerka dambe ha gashane geerka hore gasho yaa u diyaar geerka hore inuu geliyo insha allah dhahada allah inaga farxiyo allah inaga farxiyo nin taajira ayaa masjidka soo galoo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayey xafiiskiisiina markuu tagana waa laga celiyaa wuxuu yidhi masjidkee buu ku tukadaayo masjidka halkaa ku yaallo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu u dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniina iska jiro ilaahay ku xidhan moogtaha oo ilaahay cilaaqo la leh iska alla barya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ilaa dhinacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annakay ahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataa ee maxaad gacmaha la taagtaagi maanakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu ya allah allah ya muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhallinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan oday baa inankiisu ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta 1,000 shilin aabba ii keen buu ku yidhi 1,000 shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii un ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya 1,000 shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyeysii way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu yidhi aabbo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yar eego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri tolana waan 1,000 shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adiguye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadii unbuu ku yari wareego hooyo lacagii siiyo maxaad ka dhigay amaan way siisay hooyo moogta hooyo macaan uu keeno uu ka qaado dabkii unbu haddana ku tuura kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee oo u tago hooyo 1,000 shilin siiyo war lacagta beryahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma kuu sheega ahaa aabbaa igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamuu uu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya buu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaasoo 1,000 shilino uu la shaqo tago aduu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu keenay odaygii aabbo ho
markaasuu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may aabbo tani tii hore way ka duwan tahay buu tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa. waxaan xasuustaa maalin sanadkii hore aan u malaynaya bishii November bisheedii diyaarad baan ka raacnay Djibouti waxaan u soconaa Addis Ababa Ethiopia Airlines maalmaha diyaaradda raaci doono muddo 5 bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda oo 150 qof ay ku qurbeeshay baad maqashay ma malayn ya 130 dar dhabayna la fadhiisatay dad baa naga raacay dadna hadana safarkii baa sii wadanay ilaa Addis markay u dhawaatay waxay gashay roob iyo buuro waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu way garirtay markaa kursigan aan u fadhiyaa kitaab quraan aan iska akhrisanaya halkaana culimo kala fadhida halkana nin daadiisa ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo xabashi ayag fadhiya diyaaradii way garirtay markaa quraankan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed markaas aan ku yiri laa ilaaha illa allah markaasuu yiri igu celi way garirtay hadana diyaaradii oo naxay aniga hadana ay qabsaday markaa baan laa ilaaha illa allah markaasuu laa ilaaha illa allah subhanallah dhageysta musa ajiib wallahi waa masa ajiiba markaasaan ayaan ku iri maxaad la cabsoon baan ku iri odayadaaba hamay cabsoon odayada marka aniga ila socday niman culimo reer Djibouti bay ahaayeen ijtimaac ka dhacay Addis Ababa ayaan u soconaa way iska hurdaniyo marka kursiga dusheeda iska khoorinayaan markaasaan ku iri kuwa hamay cabsoonayaan adoo maxaa la cabsoon wuxuu yiri kuwaasi way shaqaysteen anu ma shaqaysan buu yiri kuwaasi waa muslimiin way shaqaysteen buu yiri ma cabsoonayaan anu laakiin ma shaqaysan buu yiri adduunkan aan khamri ku cabaa fisq iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyan ku jira maxaa marka wuxuu yiri anu islaam baan u baahanahay buu islaam inaan islaamaan doonayaa buu yiri hadalkii hadana Saudi garirta diyaaradii markaas hadana lugtii qabsaday war isiida laa ilaaha illa allah markaas iga dabeeyo laa ilaaha illa allah diyaaradda markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay waan ka faa'iideystay waxaan ka yiri waa inaad islaamtaa wuxuu yiri islaamnimadu bariyahan oo dhan maskaxdeeda ku dhex guuraysaa buu yiri waanan arkay buu yiri dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin waan arkay buu yiri rag badan oo ganacsato muslimiin ana saaxiib aan lahayn buu yiri marka isoo duceeyay buu culamadan ay ugu sheekay isoo duceeyaan anna ballan waan islaamaya buu yiri hadalku halka noo maray marka ayaa la soo dhaadhaca waxaan xasuustay marka aayadaas وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم حالة هذاك مركي كنت ما دبا إلهي كوا قال ذا حاجة أصور ذا حاجة إلهي مساجد جمعه لبوحه وآل تكنايو أي من قروح بدن أو در آذو قروح بدن ستة أي صفقه ركوت كذي وكسوك عي علماء بيقولوا يمدي وحبوا دكتور أبو الشيخي شيخ إمام كان مكرفون قاتل وحوري نكان ولكن ندول تاجن وحوله يا جماعة مسلمين أولاد إلهي هاي وديان بقول يقول دعي يقول والله دعي ما شاء الله هذا الجمعية كانوا سواك عي دعاء بقول الشيخي والله دعي هذا الجمعية سدعات بسواك عي دعاء بقول الشيخي والله دعي من علماء كانوا فكري وياري صفر يسبونه وعر إمس هدوم البورستين بكيري مركزي ما بقول بقى مركورة من نكاس صحبا دعالي ساسي مسعونيسا دعالي ساسي مجمع عادني أولياني علماء أوبر ودعيين الممكو عليا لماذا بلو ويلي من الشيء خلاف السنة
سنة إلهية دي مخلاف سيئة طريقة دي الله مرة يسحب ممرين مركا أصوك عليها يؤدي سقوح دي سوحة لموريا من أفر دمر له وولي وبنع كتحن لكن مركو يرمى بورسن دا أيها اللي يدور والنمبر باكا قلدنه ورد سوق بورسو ورد النمبر كاسكا سو صح النمبر كا إلهي بري طيب هذا الجمعين يكونوا سوق علي نكي حالات دي سوق غاية حواشا كقالبا أيها اللي ورنا قفل سوريا انتو إمام بماشي مفريسيين علماء دي باكوتر ورمى نكي دعاء الدوني خير كبرناي دعاء الدون كي محاد مفريسي سيبا لقيلو مركز سويد ورنا برباكا قد لبوري نكا مسكح ذو حكاية القضاء سيادكو قراتيو دمو بقرسان بيودي كوا مالين قيلة يو اسكبر جينا يا واكن جماعة ضدك زيارتان موقتها أيا نقل لي سفيعا بالنصر دوينو بي بي سي دي الراديو كانوا وي بختيين وين نغيستين markan nu yar dhameynay wacdigii aan idin fadhiguna kala fiican masaajidkeena mariyo na raac mid baa gacanta taago yiri nabi maxamed alayhi salatu wassalam ilaahi la soo diray waxa lagu yiri namaad maqasheen buu yiri markaasaan aamusno kuwi la barjeynayay baa yiri warninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhageysta هاي نوكرنيو جاتك وتخصيصية هاي سيجار كنا نبي جوا حلو يقول ما نقاشين بالله شيء فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر هذا الكاكورنا ده كواني بنبي قال لك يري هذا واني باتهاي دين تدك قصب كقدر قيمته نبيكي بس هذا اللي بيقوليه أنو شاكتانه قسم هنا كقد دقينه إسكا صعدا بركاس كل جودي هذين إكاس شيخ هيك وانكاس شيطان بشيخنا أقنتي وحيا لكن تقودي به خاصة إيمانك بف ضعيفة تلقصان النشاقي نمن عدانا أضل حيستياله حب بيمريان مال حبه حبتي waxay ugu tageen nin muslim oo dhalinyaro ah oo xabta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yiraahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yiri waxaan ahay kalluumaysto badan ka kalluumaysanaya oo khaydkii baa badda iigu jiro halkan waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi dadna waan lugtayda dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsada dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygan u geeyaa buu ka yiri way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu maxaan ka dhigaa waa qiso مثل يعني waxay ku yiraahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysan baan u maleyn shabagaad badweynta ku tuuran halka 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban markaas uu kadibna waxay yiraahdeen in muddo asada u shaqee lacagta yar ururso doon yar baad marka dambe iibsan doontaa engine yar baad motor yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban ilaa 200 xabadood markaas uu ku yiri kadibna markaas sayidada imudda asada u shaqeey magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaas aad markaa ku iibinaysaa dadka oo dhan baa ku baranaya nin caamad wadanka ka noqonaysa oo kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu oran markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaas uu kadibna dhowr sano sida u shaqeey hay lacagta urur banka dhig kadibna laashkan dheereeyo ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xageega fadeed baan idhaana Djibouti fadeed kaawad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa
dadna waxaad soo qabanaysaa dhowr kun xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo waliba khayraad badan oo badda ku jira markaasuu yidhi kadibna gobollada waddanka oo dhan baad ka furaynaysaa markaa branch meelo maaragtaan aad ku iibisad kalluunka waddanka dhanba kalluunka adigaa siinaya markaasuu yidhi kadibna muddo sidaa u shaqey haddana 5 sano 6 sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka samaynaysay markaasuu yidhi kadibna warshadaasi markaa way shaqaynaysaa adduunkaad u kala daraysaa markaasuu yidhi kadibna qasri weyn oo villa ayaad dhisan oo si fiican baad u seexan bay ka yidhaahdeen wuxuu yidhi hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buu yidhi wuxuu yidhi ma hurdo un baan intaa u maraa buu yidhi sownigii hurday maa imikadan waxaan ka wadaa macna isku aragti ma nihin noloshan daahirka maaha nolosha muslimku ibnu taymiya raximahullah ayaa yidhi ina lilaahi jannatan fi dunya adduunyadan dusheeda ilaahay jannuu ku leeyahay ninka jannada adduunyada aanan gelina jannada aakhira ma gala buu yidhi jannada adduunyadu waa maxay waa xayaat aliimaani walacmaal inuu qofku noqdo qof qalbigiisa ilaahay mar walba ku haya xuska ilaahay oo qadarka aaminsan anagoo jawlad bari soconnaba nin u tagnay Soomaaliya oo leeyahay ninka waa Soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabaya wadannada gaalada markaasaan u tagnay assalaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xageed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum tan leedahay buu nagu yiri ma dalkii waan ka imanno qaaradii Afrikaan ka imanno ininkaan soo buuqano inaan miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka diinta ayaa ni bar ininka buu yiri diinba ma taqaanaan sawka ilaahay yiri ma la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun waya نسخرانا وآيات دليلنا يأك معلومات هو هيا لكن يقينتي إيمانك ضعيفة مرقاسا كنا لي لا بأس نراح سلانا ونراح نراح نراح جماعة بينتك لا تصوص صلاة نراح إلهي فلق إنك السليم ونقص الراح جماعة دي بلنا قيستي حبينك يبون الله سيحلي subaxdii markuu kacay ee khamradii ay ka bacday uu arkay miskiin laga dul eedaamayo oo buu telefoon qaato wuxuu yiri ayaa meeshan ikeenay ii sheegay waan xidhibe booliis baan ugu yeedhay wadankan hadii booliis lagu yeedho waa khalaas waa lagu tagay markaasaan idhi cidba kuma naga raalliha oo iska socow markii dambe ragii noo sheegeen waxay nagu yiraahdeen ninka wadanka markuu soo galay عالم بوها ولبا مساجد ودنك كو يالو امامك هابي نغو دادين ما عندنا طريق خمرك كو عبيا معلوماتك وا شيء واغوني ايمانكنا واغوني ويان ومدو ما انت ايمانك هوسو يالا ايمانك ان كورسو قادنو باهنahay markaas sida darteed be saxaabada rasuulku in iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen والله وحول بوي كدورتين دان ساعده غدانو مليواد يا مسوغا بيا كلها لما هي كما با كجرنا ما انت دخل لما هي كما دولة العباسية نكي متوكل اورنجري ايا دد مسلمين وكقاتي دولكوغي بيرهوغي marka bay dadka muslimiintu intay soo raaceen gabar walaashi oo la dhalato nafiisa la oranjiray bay ku yiraahdeen walaalka aduu ku jecel yahay aduu ku maqlaaye beeraha yagii tijaaradeedii xoolaha yagii buu naga qaateen nagala hadal bay ku yiraahdeen markaas ay ku tiri afcalu insha Allah waan yeeli doonaa sidaas wallahi hadli doonaa bay ku tiri halkii iyakoo la taagan buu boqorku dariiqa soo maray baa la yiri markaas ay ku yiraahdeen waa ka markaas boqorkii lagu yiri xaraskiisii baa ku yiri walaashaaba meesha taagan walaashaaba intan taagan oo halkan joogta markaas uu ku soo leexdo walaashii buu yimiday markaas dadkuna ku soo urureen laba hal eray bay ku tiri waxay ku tiri lima markaas uu ku yiri kama markaas ay kala dhaqaaqeen markay ka dhaqaaqeen dadkii markii horeba ninkan ka cabanayay kaga cabanayay
ayaa waxay ku yidhahdeen gabadhii waana kii kuu sheegnay kugu soo ashkatoogne isagana waa ka ilaahay meesha soo mariye miyaad nagala hadashay bay ku yidhaahdeen markaas ay ku tidhi waanigii la hadlay ma isaguna waa kii ii jawaabay markaasay ku yidhahdeen lima iyo kamaa unbaad istidhaahdeen maxaan ka garanay bal noo macnay bay ku yidhaahdeen markaasaan ku idhi lima tadlimuuna annaasa maxaad dadka u dulminaysaan ood waxoogii xoolahooga u qaadanaysaan baan ku idhi markaasuu iigu jawaabay kamaa takuunuu yuwalla calaykum waxaad ku tidhaahdaa sidaad ininku aad tihiin ayay madaxdiinuna noqonayaa ka dhabuu yidhi waxaan walaalkii hadalkiisa ka fahmay bay ku tidhi ininku ilaahay u toobadkeena haddaad hagaagtaanna madaxdiinna hagaagi haddaad bacnaataanna madaxdiinna bacnaan hadduu camalku hagaago xaaladda adduunyadoo dhan baa hagaagi hadduu camalku naga xumaadana xaaladda adduunyadoo dhan baa xumaan acmaal baa ilaahay doonayaa camal halka maanta muslimiintu ay joogaan camalkoogaa dhigay haddaan soo noqonana ilaahay tabaaraka watacaala raxmadiisa waa waasic watuubuu ila allahi jamiican ayuha almuuminuuna lacalakum tuflixuun baa ilaahay yidhi soo noqda baa ilaahayna leeyahay dhammaantiin saaad adduunkan iyo aakhiro aad u liibaantaan haddaan liibaan doonayna waa maxay waa inaan ilaahayna u soo noqono haddaan cidhiidhiga rabna inaan ka baxno oon faqriga ka baxno oon dulliga ka baxno oo qaxootinimada ka baxno oo gaalada muslimiintu ay gacmaha hoos haystaan haddaan rabaan inay ka baxaan waa in ilaahay loo soo noqdo oo ilaahay u soo noqda waa maxay macnaheegu kitaabka ilaahay u soo noqda sunnada nebigiina u soo noqda calayhi salaatu wasalaam wadannada gaalada beri annagoo joogna ayaan mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac 2 bilood oo na raac 40 cisho wuxuu yidhi niman yahow 22 sanaan joogay buu Yurub Denmark man 22 sano joogay shaqo la'aan bisaarad wadankana dhawaan soo galay buu yidhi haddaan shaqo raadinayaa niman yahow culumoy shaqo ilaahay ii weydiiyay shaqo yar oo fiican buu yidhi annagii buu daalac noo raacayba ilaa ummadun guri lagu saleeyo bogta markaasaan haddana gobol kalaan tagnay nin waxaan helay markaa isaguna yidhi dalka Mareykanka waxaan ku noolahay 37 sano bal 10 berina raac oo naftaada soo islaaxi oo bal aakhirada dareenkii aakhiro in yar ka ilaahay la soo munaajoonay markaas yidhi 37 sano wadanka joogaa buu yidhi haddaan maanta dhinta kafan ma haysta buu yidhi waxaa la ii sheegay buu yidhi inuu Australia ka qaraxday Australia aanu dhoofayaayo qola nooli ururinayse culumay ducada igu daray buu yidhi hayo waa kugu darnay socodna waa ka soo noqonay annagoo Dubai habeen marayna airportka Dubai ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warrama ma Soomaaliyeed baa tahay Soomaaliyeed baan ahay ma sha Allah hageed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno wadanka noloshiisa ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay igu tiri marka ii soo duceeya kii dalka joogay xagu u socda wuxuu ku ducaysay Ilaahu Yurub mari gali kii Yurub joogay Ilaahu maru Mareykan gali North America gali kii Mareykan joogay Australia ii gaarsi kii Australia joogayna noloshii waan garan weyno Soomaaliya ku soconnaa firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihin inaku dan baa yidhi dayax gacmeedkii u horreeyay la diray buu yidhi waa kaftan 2 nin baa loogu tegay buu dayaxa dul fadhida Soomaaliya hindigii baa lagu yidhi meesha maxaad ka qabanaysaa markaasuu yidhi ganacsi baan ka yar gelinayaa buu yidhi waa dhul cidla Soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa transit baan hay buu nabiga ku salli xagee markaa u soconaa bal sheega war meeshaan ku fiicannahay inaku waa diinta weeyaan insha Allah dhahada diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta ilaahay noo qadaro diinta dadaalkeega insha Allah ina ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin Allah inagu anfaco saad noo soo dhaweeysan Allah inii soo dhaweeyo Allah inagu anfaco sallallahu alayhi wa sallam
bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra